بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا وزيرك iyo ka soo qaybgalayaasha iyo dhammaan salaan kadib anagana waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb ka ahaado daafurka qorshaha iyo istiraatiijiyadda caafimaadka ee la yiraahdo Somali Community Health Community Strategy oo macnaheedu yahay shaqo yani caafimaadka oo la daadajiyo oo sida hooseeyo loo qabanayo oo at community level oo guri to guri la qabanayo oo hooyooyinkii ay qabanayaan saasaan u fahmay female health workers hooyooyin xirfadlayaal oo trained ah oo guryaha ku qabanayo oo bulshada dhexdeeda intaan hospitaalka la soo gaarin si caafimaadka loo gaarsiiyo meesha ugu hooseysa oo loo badbaadiyo hooyo la badbaadin karay xanuun yar iyo ilmo maaragtay dhalanaya aad bay u tahay yani shaqo dadka qabanaya oo shukri iyo samsam iyo gabdhii halkan ka hadlay aan aaminsanahay inay ugu jiraan farxadda ay ka helaan marka ay qof hooyo caawiyaan ama cunug yar oo maaragtay markaa dhanaya ay badbaadiyaan ee aanay ugu jirin shaqo ayaga income soo gelisa marka wasaaradda iyo ka soo qaybgalayaasha iyo partnerska iyo cid kastoo ka qayb qaadatay aad ayaan runtii ugu hambalyeynayaa waa shaqo garab istaag mudan waanan aaminsanahay sida aan sheegay in shaqadan lagala tashaday cid kastoo ay qusaysay halkan waxaa iga muuqday dowlad goboleedyadii fulinteeda qaybta ka noqon lahaa qaar ka mid a dabcan waa ismatalaan waxaan arkayaa donorskii iyo partnerskii iyo hay-adihii fulintooda ayagana laga qaybgeliyey annaga wasaaradda maaliyadda sida aan sheegay door baa naga saaran in aan door ka qaadano bixinta adeega in wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda awood loo siiyo in adeegan ay bixiyaan laakiin haddana waxaan wada ognahay marxaladda iyo duruufaha dhaqaale ee dalkeena ka jirta dakhliga aan soo xareyno caqabadaha badan oo jiro aan rabin hadda in halkan uga goyoodo waxaa intooda badan yani lagu isbeendgareeyaa maaragtay ciidankeena iyo sektorka amniga wixii amniga ka soo haram mar walba mudnaanta koowaad iyo labaad saddexaad waxaa leh sektarada arrimaha bulshada oo caafimaadku ugu horeeyo oo waxbarashadu ku jirto marka hadduu ilaahay idmo sidaan meeshaan ka sheegay waxaan awoodda isugu geyn doonaa inaan dakhliga gudaha kor u qaadno oo shaqo badan ka qabanno waxaan awoodda isugu geyn doonaa in aan maalgashi shisheeye oo inoo yimaado maalgashi shisheeyuhu dhaqaalaha kobiciisa waxyaabaha ugu waaweyn oo ka qayb qaata weeye hadda haddii aad eegto dheytada yani wadamada ugu hooseeya oo maalgashay jooga baan ka midnahay sababtuna waxa weeye waa xasiloonidii oo waddankeena aan weli buuxsamin dowladnimadii oo aan inoo xoogaysan systemkeena cadaaladda oo aan adduunyadu aysan gaarin inuu 100% isku haleeyo waana waxa aan dhisayno ilaa inta labadii dhikeer u dambeysay laga soo shaqeynayay insha Allah taala haddii duruufo inoo soo baxaan budgetka soo socdo sanadka dhawaaqadiisa la meel marin doono wixii suurtagal ah oo markaa la qaadi karo tixgelin weyn iyo mudnaan iyo hortabin ayay dawladdu siin doontaa inagoo og in maaragtay adduunyada oo waxyaabaha ka socda ay dhaqaalaheena iyo awalba tabcaan ahaa saameynta ay ku leeyihiin waxaan dhammaantiin idinkugu mahadcelinayaa inaad meesha ka sii wadaan gaar ahaan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa gabdhaha meel kasta iga dhageysanayaan kuwa jooga howlkan iyo kuwa maqan female health workerska ah oo laga yaabo duruufo adag iyo meelo fogfog oo dhaqaatiirta caadiga aanay ka shaqeyn karin inay ka shaqeynayaan oo hooyo iyo cunug ku badbaadinayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.